waxaad iga maqlaysaa janalka aftahan video production oo kamid ah janalada afka Soomaaliga ku hadlay isla markaana dhageystayaasha ka raali galiya dhinaca YouTube-ka. janalka aftahan video production wuxuu ku soo gudbinayaa barnaamijyo siyaasadeed oo aad u xiiso badan. barnaamijyaduna waxay xambaarsan yihiin horumarka dalka Soomaaliya oo hiigsanayo iyo waliba dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan meesha ka mirnayna mucaaradka dowladda ka soo horjeeda gaar ahaan siyaasadda farmaajo iyo qeyri aan ku qanacsanayna. barnaamijyadu had iyo jeer diiradda ayay saaraan. sidoo kale barnaamijyada janalka aftahan video production waxaad ku maqli kartaa akhbaaraadkii ugu dambeeyay dhanka gobolada dalka Soomaaliya. meel walba ay Soomaali joogta way ka xirqanayaan hubaal weeye tahay ka mid noqo kumanka ku xiran janalka aftahan video production si aad u hesho barnaamijyo adiga ku raali galiya imikana saacadu waxay abaaraysaa waqtiga aad dhageysan jirteen barnaamijkii subax wanaagsan oo saaka xiisa gaar leh. subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto toodu soofi Allah siyaati subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto toodu soofi Allah siyaati bismillaahi الرحمن الرحيم nabad weeye nabad dunida meel walbood inaga dhageysanaysaan kula soo dhawaada barnaamijkii subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto toodu soofi Allah siyaati subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto toodu soofi Allah siyaati waxaa soo iftiintay qoraxdii aruuriyadu shaaca ka qaaday maalin cusub oo hor leh. waxaa wada dhaqaaqay dhammaan noolihii oo idil u kala dareeray kasab iyo tacliin. waa la wada tilaabsaday isagoo qof walba uu maanka ku hayo waqtigu waa sida seefta ah inta uusan ku goyn adigu go subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto toodu soofi Allah siyaati subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto toodu soofi Allah siyaati subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warkayaga subaxnimo. shir maanta magaalada Kampala ee dalka Uganda uga furmaya madaxda dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. madaxweynaha galmudug oo sheegay in dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka maamulkiisa ay uga maqan yihiin xuquuqo fara badan ayna ka raadsan doonaan. saraakiisha ciidanka dawladda oo sheegay inay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab. guddoonka baarlamaanka Soomaaliya oo ka warbixiyay kulan looga hadlayay iska warqabka baarlamaanka iyo shacabka oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug oo ka digay in mideynta baarlamaanada labada maamul ee ahlu sunna iyo galmudug loo maro qaab aan ahayn qaabkii lagu heshiiyey. shirka golaha amniga gobolka Banaadir oo lagu go'aamiyey in ciidanka 12 Abriil laga saaro caasimada Muqdisho. subax wanaagsan markale dhageystayaal saaka waa Jimco 2 bisha 3 ee Maaj sanadka 2018 inta aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobada ugu door karoon warka subax ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo dhameystiran. shir ayaa maanta magaalada Kampala ee dalka Uganda uga furmaya madaxda dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sugan dalka Uganda kuwaas oo ka qaybgalaya maanta shir ka furmaya magaaladaas oo ay yeelanayaan wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. iskaashiga dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, tayeynta ciidanka Soomaaliya iyo xoojinta wada shaqaynta ka dhaxaysa ciidamada qalabka sida iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ayay tilmaameen madaxda qaar in shirka maanta ka furmaya magaalada Kampala diiradda lagu saarayo. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Uganda ayaa sheegtay in shirkan uu muhiim u yahay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya loogana tashanayo hanaanka nabadeynta ee Soomaaliya iyo howlgallada ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ay dalka kaga saarayaan kooxda al-shabaab. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa shir gudoominaya shirka maanta halkaasi ka furmaya. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka qaybgalaya shirka goobjoogna ka ah isaga oo madaxweynaha iyo wafdigiisuna ay sii gaareen magaalada Kampala ee wadankaasi Uganda. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda federaalka uga qaybgalaya shirkan kuna matalaya ayaa yiri shirkan waa mid muhiimad gaar ah u leh
waa qorshaha la xiriira dib u dhiska ciidanka iyo sidoo kale qaabkii dowladda federaalku ay u gudbin lahayd madaxda shirkan qorshe cadcad oo ku saabsan sidii ciidamada soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda difaaca dalkooda taas oo madaxweynuhu uu ka codsan doono dadka ama wadamada taageera soomaaliya ee shirkaas ka qaybgalaya. madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka uu maamulkiisa uga maqan yihiin xuquuqo fara badan. axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo hadalkan ka jeediyey munaasabad ka dhacday magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah maamulkaas ayaa sheegay in hadda bulshada ku nool galmudug iyo maamulkooda oo isku duubanba ay diyaar u yihiin inay raadiyaan xuquuqda ka maqan maamulka galmudug. waxa uu sheegay in si gaara xuquuqdaas hadda ay baadigoobayaan ay uga maqan tahay dowladda federaalka iyo beesha caalamka loona baahan yahay in aan looga harin dowladda iyo beesha caalamka waxyaabaha uga maqan dhinaca maamulka galmudug. xoolo badan iyo hanti badan ayaa naga maqan oo u baahan inaan raadsanno oo aan kabaha u gashanno oo aan meel kasto ay naga jiraanba ka doonanno hadday dowlad federaalka tahay ka doonanno hadday beel caalam tahay ka doonanno hadday baryo tahay ka doonanno hadday wax kale tahay si kastaba ahaatee waa inaan maaragta u istaagnaa hawl maanta inaan u istaagnaa. dharkaa waxaan u soo qaatay ma waayisu laakiin waxaan idiin sheegayaa inaan jeclahay inaan shaqeeyo waa dharkii shaqada laga bilaabo saacaddan waa noo shaqo hawshii iyo guddiyadiina way noo furan tahay inaan dhammaystiranno aan ku dadaalno. maamulka galmudug ayaa dhowr mar waxa uu sheegay in bulshada ku nool deegaanada maamulka galmudug ay u baahan yihiin in markaasi lala shaqeeyo dowladda federaalkuna ay kala shaqeyso dhinacyo badan oo arrimaha horumarku ay ugu horeeyaan. guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulan looga hadlayay iska warqabka baarlamaanka iyo shacabka oo lagu qabtay magaalada nairobi. kulankan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda la yiraahdo iida ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii ay isaga warqabi lahaayeen guddoonka baarlamaanka xildhibaanada iyo golaha waa bulshada soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad oo ka hadlay shirkaas ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah uu leeyahay shirkan oo halkaas lagu qabtay gaar ahaan magaalada nairobi. waxa uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya in tilaabadan ay tahay tilaabo muhiima oo baarlamaanka iyo guddoonkuba ay ku doonayaan in ay ku ogaadaan aragtiyada iyo baahiyaha ay qabaan shacabka. ay iskaashadaan bulshada rayidka ah iyo waxa weeye mudanayaasha matala shacabka soomaaliyeed ee labada aqal haddii uu iskaashi dhab ah dhex maro waxaanu aaminsannahay in nolosha shacabka soomaaliyeed ay sare u kacayso oo ay intii ay ahayd ka sii wanaagsanaanayso. aad iyo aad baa runtii maaragtay dhiirigelin weyn ay annaga noogu ahayd sida ay uga soo ajiibeen xildhibaanada labada aqal. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee labada aqal oo ka qayb galay kulankaas ka furmay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxa ay ka hadleen iyagana dhankooda muhiimadda uu leeyahay shirka laga furay magaalada nairobi iyo qaabka ugu wanaagsan ee ay la tahay in ay isaga warqabi karaan xildhibaanada baarlamaanka guddoonkooda iyo weliba shacabka ay matalaan. dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha laga hadlaayana waa inay ka bilaabataa dadka runta u baahan dib u heshiisiinta aysan ahayn 4 qof oo miiska isugu timaado oo ka hadasho oo tiraa dib u heshiisiinaa dalka ka dhacday laguma helaayo. arrimaha laga hadlayay waxaa ka mid ahaa sida qaxootiga ku soo barakacay gobollada Soomaaliyeed ma aha kaliya Muqdisho waxay ku soo qaxeen ee dhibaatada gobollada ka taagan tahay taana baarlamaan ahaan waxaan doonaynaa in Ilaahay yiraahdo dadkaas xuquuqda ay leeyihiin inay helaan ama ka doodo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan ka shaqeeyo halkan. xildhibaanka mas-uuliyaddiisa waxay tahay oo ay ka mid tahay korjoogtaynta ama oversight responsibility wax la yidhaahdo check and balance wax la yidhaahdo oo dowladdii iyo xukuumaddii in si dhab ah loola xisaabtamo. intaasoo dhan ayaa meesha looga hadlay. waxyaabo kaleeto oo badan oo ay ka mid yihiin reconciliation processka ama
dib u heshiisiinta loo samaynayo waddanka iyo shacabka soomaaliyeed ayaa iyadana hadda la geli doonaa wuxuu socon doonaa shirkan ilaa iyo 3 maalin ilaa guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa horey u sheegay in la qaban doono lana joogteyn doono shirar muhiim ah oo lagu dhageysanayo markaasi aragtiyada shacabka loogana hadlayo sidii ay isaga warqabi lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba bulshada ay matalaan. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka digay in mideynta baarlamaanada maamulada Ahlusunna iyo Galmudug lala baalmaro qodobadii lagu heshiiyay. maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa warkan faahfaahinaya. xildhibaan duraan cali jaamac oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug oo la hadlay idaacadda Dalsan ayaa waxa uu ka digay in la baalmaro heshiiskii ay horey u wada gaareen maamulada Ahlusunna iyo Galmudug gaar ahaan heshiiskii dhankiisa ku saabsanaa mideynta labada baarlamaan. waxa uu sheegay xildhibaanku in ay suurtagal tahay in waxyaabo kale loo maray isku darka baarlamaanka la doonayo in la mideeyo. xildhibaan duraan oo sii hadlaya ayaa sheegay in muhiimadda heshiiska ku jiray ee dhinaca mideynta labada baarlamaan ay ahayd in lagu saleeyo nidaamka awood qaybsiga ee uu ku dhisan yahay baarlamaanka maamulka Galmudug. haddii ay dhacdo in wadadan la baalmari waayo ayuu tilmaamay inay imaan karto caqabado horle. anigu waxaan aaminsanahay waxaa weeye oo heshiiskana ku jiray in labada baarlamaan la isku daro iyadoo lagu beys karaynayo awood qaybsiga Galmudug. kulay midda kaliya oo rumaantii wax la isku keeni kara taasaan u arkaa sida Galmudug ku dhisan tahay in baarlamaanka lagu keeno. arrintaasaan rumaantii waxay noqon kartaa arrin inkastoo dad badan oo ka mida Galmudug aysan ku qanacsanayn awood qaybsiga hore ee Galmudug ku dhisay haddana waa beys kullay la bilaabay. marka kullay anigu waxaan aaminsanahay in awood qaybsiga Galmudug wax lagu beys karayo rumaantii saasaan wax kusoo dhawaan karaa maasle. kullay wax walba waa 50-50 waxaa weeye waa xukuumadda kala barba yeelan doonaan taliyaasha ciidamada kala barba yeelan doonaan iyo baarlamaanka ay barba yeesheenba kullay awood qaybsigu waa awood qaybsi kala bar ah. marka wax kasta waa kala barbay noqon doonaan. marka kullay waxaan rajaynaynaa wax kasta inay ku yimaadaan sidii qaabkii beeluhu wax ku qaybsan jireen. saasaan la oran karaa waxbaa ku ficnaan kara beeluhuna ku wada qanci karaa. laakiin haddaan qaab beelo wax ku qanacsan yihin wax lagu qaybin arrintaasi waxay keeni kartaa boroboleyn horle iyo khilaaf horle. si kastaba shalay ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug laga daafuray shir lagu mideynayo labada baarlamaan islamarkaana lagu dhammaystirayo heshiisyadii ay magaalooyinka Jabuuti iyo Muqdisho ay ku wada gaareen maamulada Ahlusunna wal Jamaaca iyo maamulka Galmudug. Wamasantahay maalin. shirka golaha amniga gobolka Banaadir ayaa lagu go'aamiyay in markaasi ciidanka 12 abriil ee ka tirsan militariga Soomaaliya laga saaro magaalada Muqdisho. shirkan oo ay isugu yimaadeen xubnaha maamulka gobolka Banaadir oo shir gudoominayay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Cumar Yariisow ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga caasimadda Muqdisho iyo sidii loo mideyn lahaa ammaanka loona xoojin lahaa. waxyaabaha ka soo baxay shirkan waxaa ugu muhiimsan in ciidanka amniga waa in ciidanka dawladda gaar ahaan ciidanka militariga ee gobolada shabeellooyinka lagu celiyo goobahaas isla markaana laga saaro magaalada caasimadda ee Muqdisho si ammaanka caasimadda aysan waxba ugu dhimin ciidankan oo buriyii dambe ay isku dhac u dhaxeeya iyaga iyo ciidanka kale ee dawladda ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho. subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi Allah siyaadsi subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi Allah siyaadsi intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii subaxnimo ee subax wanaagsan oo kamid ah barnaamijyada ka baxa channelka Aftahan Video Production. waxaa macquul inaad iga dhageysanayso channel aanan ahayn Aftahan Video Production oo aan tixgelin copyright-ka. sidaa darteed waxaan ku xusuusinayaa barnaamijkan aruriyaad ee subax wanaagsan inuu qayb ka yahay barnaamijyada aad ka heli karto channelka Aftahan Video Production. intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doono waa bahdii barnaamijka subax wanaagsan oo isku duuban oo idinku dhaafaya sidaas iyo subax wanaagsan. subax wanaagsan
wanaagsan subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaad si subax wanaagsan inta saaka sama